السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maareynta waqtiga ma xirfad bay u baahan tahay? haa, maanta waxaan kugula wadaagi doonaa 7 xirfad oo aad ku maareysan kartid waqtigaada. ma ogtahay waqtiga inuu yahay waxa kaliya ee si dhab ah haddii aan uga faa'iideysano nolosheena macno u yeelaya, haddii aanan ka faa'iideysanina sida ay ku tagin aanan fahmi karin. waxaa dib aad u xasuusataa sanadihii hore ee na soo dhaafay. sanad walba wixii aad kala hartay oo qiimo ah way kula joogaan, laakiin asagii wuu tagay. halkan waxaan kugula wadaagayaa 7 xirfadood ee naga caawin karta in waqtigeena aan maareyno oo aan ka faa'iideysano. qodobka koowaad waxaa waaye kala madnaasiin, in aan kala madnaasiino hawsha aan qabanayno, inaan maanta magaalada aadno iyo inaan cashir akhriinayno, in shaqooyinka sida u kala muhiimsan yihiin in aad u kala hormariso. tusaale waxaa laga yaabaa imtixaan inaad waxbarasho aad dhigatid oo imtixaan aad gelaysid, sidoo kale waxaa laga yaabaa in saaxiibada ay ku casuumeen. marka inaad kala mudnaansiin kartid mar walba mid ka mudan in lasoo mudnaysiiyo. kow, kala mudnaanta. ka labaad asagana maxay tahay in aan dhigano goal, hadafka aan dhiganayna waxaa u kala qaybinaynaa dhowr qaybood: mid maalinkii ah, mid oo bishii ah, iyo mid sidoo kale isbuucla ah haddii aad awoodid. ka saddexaad waxaa waaye qorsho. waxaa laga yaabaa marar badan inaad isdhahday horta qorshaha maxaa loogu soo celceliyaa, maxay nolosha ahmiyad u leedahay? qorshuhu waa waxa kaliya ah ee maskaxda bini'aadanka qofka la shaqayn karto. tusaale, maanta haddii hal maalin tijaabo kugu xujaysanaya in aad tijaabisid, hal maalin inaad soo kacdid in aad qortid wax walba oo maalinkaas aad qaban lahayd. xataa ku dar canjeerada dubis, xataa ku darso jaamacada masaajidka ku tuganaysid, ku darso wax walba, talaabo walba oo muhiim ah oo qaadaysid qor. mar walba marka wixii aad qortid, wax walba oo ku hagaagay tiksi oo sax, markaas maskaxda waxay soo degtaa wax loo yaqaano dopamine, dareenka farxadda. oo noloshaada waxay dareemi doontaa in aad horumar sameynayso, ilaan qodobadii dhan oo samaystay ku hirgasho. marka qorshaha qayb weyn uu ka qaataa nolosha iyo sidoo kale maareynta qofka. xirfadda afaraad waa wakiilashada qof kale. waxaa laga yaabaa inay ku yeelaan shaqooyin aad u badan, in marka qof aa u wakiilatid shaqooyinka qaar ka mid inuu kaa caawiyo. tusaale kale waxaa laga yaabaa in howlo badan ay ku yeelaan, in ay ku tahay inuu meel alaab ka doonto kale dhahday qof hebel oo alaabtas ii soo qaad, waqtigaas aa wax kan ku qabsatid. qodobka shanaad waxaa waaye in aad baratid si loo dhaho maya. oo maxaa laga wadaa? waxaa laga yaabaa adigoo howlo aad muhiim kugu ah ku guda jiro inuu qofku soo waco, rabo inuu iska kaa sheekaysto, ama waxaa laga yaabaa in muuqaal aad xiisinaysa inaad fiirsato kale, laakiin markaas aan muhiimadiisa aan taagnayn oo kale inuu soo dhaco kale. marka in aad dhihi kartid maya, nafsada aad dhihi kartid shaqadaan ma qabanayo, taleefankaan dhacaya hadda ma qabanayo, hadhow baan qabanaya, hadda hawshaan aan dhamaystiraya. in aad baratid maya. waxaa laga yaabaa in sidoo kale inaad baratid maya goortee maya hawsha aad qaban karin oo inaad maya dhahid. howlo badan waxaa laga yaabaa oo muhiimku waa inuu ku yahay inuu qofku dhaho waxaas ma iga caawin kartaa? maya kaama caawin karo, sababtoo ah howlo badan baa ii yaala. marka maya ceeb maahan, sidoo kalena ceebna maahan. mararka qaar waa inaad baratid si loo dhaho maya si howlahaada ay kugu hirgalaan. qodobka lixaad waxaa waaye waa in aad diirad saarid yeelataa. diirad saarid, focus. waxaa jiro abab badan oo kaa caawin karo diirad saaridda. waxaa ka mid ah abka TED, meeshaan insoo saara adooro bilaal ka noqdo. abka TED aa ka mid ah. abkaas waxaa sameynaysaa waqtiga ku xiranaysaa inaad markaa diirad saarid. waxaa laga yaabaa marka ugu horeyso inay kugu adkaato inaad diirad saarid kale. marka waxaa sameynaysaa in daqiiqo 30 daqiiqo kale inaad diirad saarid. 30 daqiiqo kale hawsha qabanaysaa, 5 daqiiqo bareega qaadanaysaa, waa ku noqonaysaa. ilaa mararka qaar waxaa laga yaabaa heer inaad gaartid 6 saacadood oo toos inaad waxaas indhaha ku hayso oo hawshaas gacanta aad ku jirtid. marka waqtiga waxyaala lagu baahan waxaa ka mid ah focus. ma ku sheegay qodobka 7 uguna muhiimsan ee aniga maalinka aan bartay si cajiib ah ii saameeyey? waa in waqtiga aad ku samaysaa wax loo yaqaano time blocking. waqtiga waa inaad xirtaa, inaad dhahid buuga tusaale kale inaad dhahid saaca subaxnimo ilaa 2 saac waxaan akhrinayaa buug hebel. halka saac marka haddii ay dhamaato in buugaas xataa hadduu kula sii macaanaa waa joojinaysaa. waxaa leedahay hawshaan waqtigeedii way dhaaftay, waa joojinaa. marka time blockers wala wax walba inaad waqti u xirtid. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay qof wuxuu yiri 5 ka faa'iideyso inta aysan 5 ka faa'iideyso 5 inta aysan imaan ka faa'iideyso dhalinyaranimadaada intaysan waayeelin. sidoo kale wuxuu dhahay ka faa'iideyso waqtigaada inta firaaqadaada ka faa'iideyso intaadan mashquulin, caafimaadkaada ka faa'iideyso intaadan xanuunsan, noloshaada ka faa'iideyso inta aadan dhimanin. marka waxaan isweydiinaynaa haddii aan horta waqtiga aan maareyno maxaa ka faa'iideynaa? horta waqtiga maxaa dii la maareeyo maxaa laga faa'iidaa? kow waxaa laga faa'iidaa stresska ama walwalka faraha badan inuu kaa yaraado. kow. 2 in shaqadaada ay fiicnaato. 3 faa'iidaa in aad yeelato focus.
sidoo kale aad lahaatid aad productive fiican inaad lahaatid inay xirfadaada aad ku rumaysid maskaxdaada in nafsadaada aad jihaysid oo maxaa ku jihaynaysaa waqtigii aad maareynaysaa xataa waxaa kuusoo haraya waqti haddaa maaraysid waqti mashquul fara badan ma yeelanaysid ilaan qof walba waqti qaraabada waqti aad ku salaantaa kuusoo harayso waqti murtaaxa ku dareentid oo waxaa riwaayadahaaga iska daawataa kuusoo harayso ilaa markasta wax nolosha laguma xiri karo in nafta ay wax qabato waqti aad mari saaxiibada waqti aad ku qaata baa kuusoo harayo waxa kuusoo haraya waqti aad wax ku barato jimicsi aad ku samayso jiimka aad ku aadid marka waxaa kaloo oo muhiim ay u tahay maskaxdeena inay kor u qaado nolosheena inay tayo u yeesho sababtoo ah waqtiga waa nolosheena waxaan rajeynayaa xujadii aan kugu xirtay inaa aad iisoo guddood xajadaas maxaa waaye waxaan kugu xujeysanayaa hal maalin in aad qortid qorshaha noloshaada subaxii waxa markaa salaada subax aad tukanaysid salaada subax iyo howlaha aad qabatid dhan ama subaxii ama habeenkii aad qortid mid kasta oo kamid aad qortidna aad tagsiisid xujadaas haddii aad horey u samaysan hoos igula soo wadaag waxaan rajeynayaa in uu waqtiga noqon doono waqtiga ugu tayada badan oo mar walba aan waqtigeena iyo xirfadaha aan isticmaali doono asalaamu calaykum